Kani waa qamiiskii Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, waxaa 13 qarni gacanta ku haya qoys uu hadiyad ahaan u siiyay Nebiga. Haddaba halka uu yaalo qamiiskan iyo sababta uu Nebiga ugu hadiyadeeyay qoyskan ayaan kugu soo gudbin doonaa muuqaalkan. Inda nuuriyow nabiyow udgoon badano aragaani waayay ma aamusnaan karaye ila yaabniman waxba ka ogay nabiyo. Bil walba oo Ramadaan ah, boqolaal muslimiin ah oo isugu jira lab iyo dhadig ayaa isku buurta albaabka laga galo masjidka qadiimiga ah ee Istanbul oo 160 sano jira. Waxa ay doonayaan inay arkaan mid ka mid ah agabka ugu qiimaha badan muslimiinta dunida. Waa qamiiskii Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, waxaa loogu yeeraa qamiiska barakaysan. Qamiiskan ayaa lagu hayaa masjidkan taariikhiga ah oo ku yaala degmada Fatih ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Qamiiskan barakaysan ayaa la keenay Istanbul qarnigii 17aad, xilligaas oo boqortooyadii Cismaaniyiinta ay xukumaysay badi dhulka muslimiinta oo Sacuudiga uu ku jiro. Dad ka badan 1 milyan ayaa bil walba oo Ramadaan ah soo booqda masjidkan, halkaas oo lagu soo bandhigo qamiiska Nebiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Si la mid ah masjidkan, sheekada kale ee taariikhiga ah ee xiisaha leh waa sheekada qoyska uu xilka ka saaran yahay qamiiskan ee mas'uulka ka ah hayntiisa iyo ilaaladiisa. Waa farcii 59aad ee qoyska Aways al-Qarni oo ahaa sheekh la weyneeyo oo xilligii Nebiga noolaa. Qamiiskan waa hadiyad uu Nebigu siiyay ninkan. 13 qarni oo xiriir ah ayay qoyskiisa gacanta ku hayaan, iyaga oo jiilba kan xiga uu u sii dhiibayay. Qamiiskan waxa uu hadiyadeeyay Aways al-Qarni oo ku aaminay Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, kadib markii ay Nebiga soo gaartay isku dayga ninkan uu ku doonayay inuu soo booqdo Nebiga oo ku sugnaa magaalada barakaysan ee Madiina qarnigii 10aad. Laakiin ninkan oo dhaxda soo socda ayaa ku qasbanaaday inuu ku noqdo dalka Yemen isagoo aan arkin Nebiga kadib markii ay xanuunsatay hooyadiis. Markii uu Nebigu nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee maqlay sida uu ninkan u heelan hooyadiis uu u baxay isaga oo aan la kulmin Nebiga, waxa uu ka codsaday 2 saxaabi oo ugu kalsoonaa Umar bin Khadaab iyo Ali bin Abi Talib in ay qamiiskan u dhiibaan Yemen. Tan iyo markaas, farcii Aways al-Qarni waxay ahaayeen ilaaliyaha dharka caanka ah ee midabka dahabka ah ee uu xiran jiray Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Aways al-Qarni ma uusan dhalin wax caruur ah, waxaana kaydka u ahaa qaraabadiisa, ayuu yiri muftiga Istanbul Xasan Kaamil Yilmaz. Sanadkii 1611, Axmedkii labaad oo ahaa suldaankii Cismaaniyiinta ee xilligaas ayaa maqlay qamiiskan, wuxuuna go'aansaday inuu la wareego, laakiin la taliyaashiisa iyo culimada ayaa aad uga waaniyay arrintaas, iyagoo sheegay inay xadgudub ku tahay dardaarankii Nebiga. Sidaas daraaddeed, wuxuu go'aansaday martiqaadka qoyska Aways al-Qarni si ay ugu noolaadaan magaalada Istanbul. Tan iyo markaas, qamiiskan ama maradan barakaysan waxay taalay Istanbul, ayuu Yilmaz u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Ugu dambeyn, hogaamiyihii Cusmaaniyiinta ee qarnigii 18aad Suldaan Cabdixamiidkii koowaad ayaa dhisay masaajidka faca weyn ee loogu magac daray qamiiskan, kaas oo ku yaala degmada Fatih ee magaalada Istanbul. Ujeedadiisuna ay ahayd ilaalinta iyo keydinta qamiiska. Bilowgii waxa uu ahaa dhismo yar oo qamiiskan lagu ilaaliyo, balse muddo yar kadib waxa uu noqday mid camiran. Waxaa jira 2 fure oo uu leeyahay masjidkan lagu ilaaliyo qamiiskii Nebiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Mid waxaa haya aasaaska masjidkan, kan kalena waxaa haya qoyska Aways al-Qarni, ayuu yiri muftiga Istanbul. Qamiiskan xurmada leh ayaa jiilba jiil kala soo maray, waxaana hadda madax u ah oo gacanta ku haya Baris Samir oo ah jiilka 59aad ee Aways al-Qarni oo ahaa ninkii uu Nebigu u hadiyadeeyay qamiiskan.